xidigta farxiye kaba yar ayaa si weyn uga dhex muuqatay tababarka xidigaha ay isku reerka yihiin Efeska iyo Hanuuniye kuwaasoo isku diyaarinayay kulan ciideedkii ka qabsoomay garoonka City Plus oo ay dhexdhexaadinaysay laacibada aan xamar ku dhexlaafyoon karin ee Muna Cumar Xasan isla cishadaas taageerayaasha reer Muqdisho ayaa ka wararayay xidigaha Hodan Cabdiraxmaan Mursal Muuse iyo Nimcaan Hilaac walow kulankaasi uu baaqday cimilada fanka oo aad u xumeed habeenkaas laakiin kaba yar ayaa aaminsan in fashilka kulankaasi ay lahayd مسؤوليتيسا تاسو عركة دحداليساي دادكا تاغيري حديكتا ستنتا وجرتا استيلكا ناني sidoo kale xiddigta Jamaad Jesto ayaa qayb ka ahayd kulankan inkastoo aan baasaskeeda loo qorin maadaama aysan qayb ka ahayn xiddigaha u diiwaan gashan UEFA ugu dambeynna laacibka Mursal Muuse ayaa afduub kula wareegay xidigta caanka baxday Hodan Cabdiraxmaan taas oo heshiis waqti dheer ah kula jirtay laacibkeedii hore ee Alta ila lagu kalsoonaan karo ayaana inoo xaqiijiyay in xidigan uu heshiiska u adeegsaday heerka toleysiga taas oo u sahashay in laacibadan aan kooxna ku nagaan abidkeed nolosheeda u hibeysay 40 jirkaasi muuqiisu yar yahay labadan waaya arag ayaana haatan si wada jir ah ugu aalmiiteynaya aqal ijaara gudaha Nairobi si ay u sii xajistaan kaalintooda jacaylka Boorama News ayaana aaminsan in labadan laacib ee midkoodna aan xamaalan ay isla meel dhigeen in noloshoodu ay ku maareeyaan dakhliga ka soo xarooda bandhigyadooda mararka qaar sahal lagu banadi karo محمد آلتا يا ودا حاجود كدو إنو guulaysto kula jira xidigta Raxma Rosa si ay badal wanaagsan ugu noqoto laacibada Hodan Cabdiraxmaan taas oo caageeda ka biyeysatay gigida Alta Stadium xidigtan 190 kiilo ayaana lagu heli karaa qiimo macquul ah inkastoo ay aad u yartahay rajada ah inay kula guulaysato tartan heer caalami ah daada laacibadan oo aad u yar sareysa dadka dhaliila Alta ayaana ku micnaya dalabkaasi fajaca mid uu isku hilmaamsiinayo xidigtiisi nambarka 10aad ee Hodan Cabdiraxmaan taasoo haatan xiran maaliyadu uu caanka ku yahay Mursal Muuse dhanka kalena laacibada Qadar Slim oo aad uga careysan kursiga keedka ayaa ku kalsoon helida xidiga aan kooxna u diiwaan gashneen ee Cabdicasiis Kalaaji xidigtan loo xulan waayay kooxda heerka koowaad ayaana diyaar u ah inay dhinto mushaarkeeda iyadoona beeca horta ah kula midoobi karta laacibkan aan habeenkii xitaa dhigan oo kiyaalihiisa Hargeysa Times ayaana fahamsan in xidigtan ku wareersan sababta loo cidleeyay ee carad daraadeed gorgorinaysa halyay walba oo u ballan qaadi kara booskeeda joogtada ah qodobka toddobaad ee FIFA ayaana qaba in dib loo eegi karo heshiis walba oo xanaaq lagu saxiixo taas oo fursad siinaysa xidigtan iyo sidoo kale Alta oo labaduba saxiixay heshiis ay ku cilbaxayaan معدرين يا هشيس رسمي على قارتي لاعب كأحمد ولي فرلا سيدا اي قبتي تشيكشيكا فوتبول لاعب كفرلا يا دور تشار كلها لقيتي حرادة توبركا حديقتان وقودية عديلة انت لقو قودي جري بلا قود حاجوتكا لاعب كان aan saamaynta badan ku lahayn kooxdiisa xidigaha geeska ayaana iska fasaqay heshiis muddo dheer oo kula jiray laacibadiisa da'da yar ee Asmalof markii iska diiday in badal loo isticmaalo xilliyada dhaawaca ama ganaaxa ku maqan tahay xidigta saxaafada loo soo bandhigay haatan ee Nimcadareen